madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu ka soo degay garoonka weyn ee magaalada London Heathrow Airport isagoo madaxweynaha ay weheliyaan marwada koowaad ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Amina Sheekh Maxamuud Jirde Amina Waris iyo xogayaha gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliland cali madaxweynaha waxa ku soo dhaweeyay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkan Ingiriiska mudane Ali Aadan Cawaale iyo safiirka wareega ee dalka Soomaaliland mudane Kaysar Cabdilaahi iyo agaasimaha TV-ga qaranka Cabdiraxmaan Maxamed Aadan Dhari iyo madaxa farsamada ee wasaaradda warfaafinta Axmed Salebaan Axmed Ali ayaa markii uu madaxweynuhu ka soo degay garoonka diyuuradaha ayaan markii qadar nasasho lagu qatay hoolka ayaan waxa aan wareystay madaxweynaha mudane madaxweyne waxa imika aad tagtay dalka Faransiiska adigoo ka yimid dalkii hooyo socdaalkaasi aad ku tagteen dalka Faransiiska oo kamid ah dalalka ugu waaweyn ee qaaraddan Yurub maxaa kamid ah dalka Faransiiska sidaad u sheegtay waxaan u nimid visit baan u nimid martiqaad baan ku nimid dalka Faransiiska waxaan la kulanay madaxdiisa ayaan la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda iyo goortidooda golaha muxuu ahay golayaashooda ayaan la kulanay waxaan la kulanay shirkadda weyn ee la yiraahdo muxuu ahay walaal baan la kulanay oo ah shirkad aad u danaynaysa inay maal gashato dekada Berbera iyo muxuu dalka caamaan ay waxayna la qabtaan marka arrimahaas aanu ka munaqashoonay waa dalka ugu waaweyn ee dawladda kamid ah weeye waa dalkan u baahnay wax wada qabsiinayno la sameeyno weeye annaguna waxaan u ahay wafdi aad u balaaran wasaarad badan baa joogtay dhinacyo badan baan muxuu ahay isla eegnay marka dalka iyo danaayna soo dhaweynay naga caawiyo xagga dimuqraadiyadda naga caawiyo waxayna tara xagga dhaqaalaha waxayna ka tara iyagoo kamid ah muxuu ahay Europe kamid ah European Union kamid ah weeye marka waa dalka dee waaweyn inuu baahnay wax la qabsano oo aynu hadii goor wax la qabsano u baahan marka sidaa daraadeed ayaanu arrimo dhowr kala duwan oo wax wada qabso dhinacyo badan leh aan ka wadalay si fiican baan wada hadalladii noogu dhixin insha Allah ta'ala aan rajeynayno inay wax tar weyn u noqoto Soomaaliland mudane madaxweyne haddii in dekada sida aad sheegtay dekada Berbera ay maal gashadaan in dawladda Faransiiska iyo shirkadahoodu ma la oran karaa marka in shaqooyin ay u abuurto dadka reer dhalinyarada da'yarta reer Soomaaliland dekadu waxay ku taalaa meel aad iyo aad muhiim ah oo weyn bay ku taalaa cid ka soo maal gashataba ama ha noqoto Faransiiska ama ha noqoto cid kale ama ha noqoto hay'adaha kale ama ha noqoto ciddii maal gashataba ujeedada laga leeyahay waxa weeye inay capacity-geeda ay wax ku qabanaysan ay aad u weynaato taasina ay faa'iido weyn u tarto u keenayso dhinac walba dhinaca shaqaalaha dhinaca dhaqaalaha dhinaca muxuu ahay xiriirka aynu dunida la leenahay dhinac kastaba u kordhinayso dalka dadka marka waxaanu ku rajaynaynaa inay wax faa'iido ka soo kordhi doonaan mudane madaxweyne haddii shirkadaha adduunka ee waaweyn ay imika yimaadaan dalkii Soomaaliland oo ay maal gashadaan ma la oran karaa waxa daba socota ictiraafkii Soomaaliland كل دلك الصومالي مركا وسيجر وحنا مسناهي الدنيا وبرتب وحنا قبصته الدنا إيه مصالح بدنا كل حرمان هالنقطة قاد بترول هالنقطة قار مالجرين هالنقطة قار وحكلا هالنقطة الدنيا مصالح كويلته الدنا كويلته طبعا وسكا طبيعي إنه محواي سودو هذان واعتراف إنه سودو هذان مركا وحنا مسناهي ها شوفت وحويه هدي بالقشقة يعمل كأن الدنيا لما عملنا لو سيكرر إنه نقصي لوينزو أما تاسي inoo keenaysa ama inagu hogaaminayso in dunida ictiraaf aan ka helo mudane madaxweyne haddaan dhinac kale ugu wareego dhawaan waxaa dalka Turkiga lagu qabtay dawladda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya ayaa halkaasi shirki aan filayo inuu ahaa wareegii shanaad halkaasi lagu qabtay halkaasi waxaa ka soo baxay qodob kamid ah oo qodobada kamid ah in ay qireen in Soomaaliland dhibaato weyn loo geystay oo genocide loo geystay taas sidoo aragta mudane madaxweyne taas waxyaalaha in muddo badan ku doodani way kamid ahayd aanu ka hadlanay waayo waa wax xaqiiqa oo history oo taariikh ah in dhibaato badan shacbiga Soomaaliland loo geystay waqtiina xataa dayuuradda ilaa ibakara saaran Hargeysa dhexdeeda
وديردي ايربورت كعسي دتكم مركو شعبيكو قحيه إتولو قحيه كدبا غورتي كدبا تagtay dumarkii maatadii caruurta qarxinaysa oo kamid waxyaabaha muujinaya sababaha qeyrashadaas waxa muujinaya sababaha keenay inay Soomaaliland iyo dadkeedu la soo noqdaan xorriyad banaanida iyo madax banaanidooda ay la soo noqdaan keenay weeye waana waxyaabaha dee muxuu ahay maanta ay noqonayso dadku markuu si fahmaba in wax qabadkeena iyo taariikhdeena iyo mid walba ay muujinayaan inuu dadkan yahay dad ka halgamaya aan ogolayn in taariikhdoodii la ilaabo aan ogolayn inay muxuu ahay wax qabadkoodii iyo sida ay dalkooda u xoreeyeen iyo sida ay ugu tashadeen inay goonistaagooda ka dhabayaan midna aan laga bedeli karin marka waxaas waxyaabaha wax weyn oo tari karayaan waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweyne markii sanadkii hore aad kormeerka ku mareysay gobolada bariga ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad dhagax dhigtay wado aad iyo aad u qiimo badan oo ummadda reer Soomaaliland wax weyn u tarita oo gobol ka go'doon ahaa gobolada dalka Soomaaliland aad halkaasi markaas aad ku dhiiratay inaad adigu markaasi aad dhagax dhigto mudane madaxweyne shacbiga reer Soomaaliland guud iyo dibadba aad bay arintaas ugu kaceen imika anigu magaaladan ka imid oo leeyahay Birmingham kaligeed bay $150,000 ayay imika isku qoran bixinayaan marka madaxweyne waxa jira in dawladda waaweyn aynu saaxiib nahay arintaasi ma u bandhigtay in inaga caawiyaan arrimaha siyaasadda maskaxdaada ma ku jirta arintaas arrimaha duwalka aynu wax ka rabno ama aynu wax ka doonayno la macaamilano wax baahiyaha dalka oo aanan u sheegin ama aanan u bandhigin ma jirto laakiin war walba waxa ka muhiimsan oo ka wanaagsan sida taa maanta baad ka hadlayso marka dadkani ummadana ku qancaan in iyagu wax qabsadaan oo iyagu ay dibad iyo gudaba hay muujinaysaa marka waxa ummaddu ku tashatay oo u dhaqaaqdo inay kaga dhabayn karayaan kaga rumeyn karayaan samaysan karayaan iyagoo aan mar walba dibadda kula cararin laakiin dibadduna waa ka warqabtaa dawlad badan baan u sheegnay wixii wax nala qabanaya xataa taa ummadanu muujinaysa wax qabadkeeda waxaan qabaa inay soo dhawoonayso in dadka wax ugu darsadaan wax ugu korsadaan mudane madaxweyne aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ee noogu faahfaahisay Cabdiraxmaan Shaqale Daahir Ismaaciil Xajaadan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London